عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada dhamaan macaamiisheena sharafta leh. Maanta waxaynu ka hadli doonaa mid ka mid ah productkeena amba alaabaadkeena oo soo saara company-geena Forever. Productgan waxa loo yaqaanaa Soya Daily Skin Care. Waxa uu ka samaysan yahay amba uu ka kooban yahay 4 product oo kala duwan. Inta aynu aan ka hadlin sharaxaadooda iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin 4 product. Horta productgan waxa isticmaali kara dhammaan noocyada kala duwan ee maqaarka dadka markaynu leenahay sida caadiga dadku skinkoodu waa kala duwan yahay. dad baa wajigoodu saliid leeyahay, dad baa qallayl ah oo dry ah, dad baa combination ah oo mararka qaarkoodna wajigoodu saliid sameeya, mararka qaarkoodna uu qalalaya. marka maasha Allah dhammaan all skin type waa loogu talagalay inay isticmaalaan dhammaan dadka maqaarkooda ee kala duwan. haddaba waxa isticmaali kara rag iyo dumarba productgan way isticmaali karaan. faa'iidadiisu waxa weeye to be young, skinkaaga inuu ka dhigo jid qurux badan oo glowing sameynaya oo qurux badan oo shine sameynaya. wax weeyaan qofkii weeg hado qof yar oo maasha Allah anti aging baa ku jira da'da ka hortagaya. haddaba faa'iidooyin fara badan buu leeyahay amba afartoodan waxaynu soo qaadan doonaa mid waxaynu ka horeyn doonaa gel cleanser-kani wax weeyaan isticmaalkiisu wax weeye subaxdii iyo habeenkii qofku labada jeer buu isticmaalayaa waana halka uu ka bilaabaya 4 product. gel cleanser-kani waa nadiifiye guud oo qoto dheer. waxa uu ka kooban yahay aloe vera-dii, amino acids-kii, waxyaalahaas oo dhan buu ka kooban yahay. jirka waxa uu ka saaraa dheerti skinka dhintay amba maqaarkeena mar walba waxa jira skin dhintay oo uu jirkeenu soo saaro. marka jirka amba skinka dhintay ayuu jirka ka saaraa. sidoo kale saliid ayuu wajiga ka saaraa. makeup-ka oo kale uma baahnid waxyaalo extra ah oo iskaga dhaqdo, si toos ayuu wajigaaga uga saaraya makeup-kii oo dhameystiran. marka waa nadiifiyo qoto dheer weeyaan. cleanser-kan waxa inoogu xigaa wax weeyaan illuminating gel-kani waxa la isticmaalaa isaga morning and night, habeenkii iyo wax weeyaan subaxdii labada jeerba qofku isticmaali karaa. faa'iidooyinkiisa waxa kamid ah brighten the skinka inuu soo saaro quruxdiisii, cadaan saafiya uu siiyo, uu shine siiyo oo uu dhalaaliyo maasha Allah. sidoo kale waxa uu aad ugu fiican yahay dhulka delicate organs-ka amba indhaha hoostooda oo kale madmadowga ku yimaada, buurbuurka indhaha hoostoodu sameeyaan amba bararka oo kale ayaa uu ka saara. maasha Allah illuminating gel-kanina runaantii aad iyo aad ayaa ugu wanaagsan yahay marka la isticmaalo cleanser-ka kadib. waa productiga labaad ee lagu xijisiinayo. waxa ku sii xiga waxa weeye waa gel mask-gan inta badan qofku waxa uu isticmaalaya waxa weeyaan waa habeenkii wax weeyaan 2 ilaa 3 cisho isbuuca ayaa uu qofku ka isticmaali doonaa. jirka waxa uu siiyaa toner, waa uu geejiyaa. sidoo kale combination skinka isku jirana waxa uu siiyaa inuu ka ilaaliyo isbebedelka. waxa ku sii xiga waxa weeye waa moisturizer-kan waxa uu u fiican yahay isaguna collagen baa ku jirta, anti aging baa ku jira. waxa weeye wajiga wuxuu siinayaa jileec qurux ah iyo shine ayuu siinayaa. isticmaal productigan.